qaybta labaad waxay ku saabsan tahay hooyadii markay muddo soo nooleed dhiigga caadada ayaa ka joogsaday markuu ka joogsado dhibaatooyin aad u badan ayaa imaan kara waxaase ugu badan kansarka naasaha uga dhaca ama burooyinka naasaha uga dhaca ama waxaa imaan kara kansar buro uga dhacdo ilmagaleenka qaybtiisa hore oo aan mid mid u arki doono inta badan sababaha waxaa keeni kara hooyada markii naaska kansarka lagu arko wuxuu yimaadaa 50 sano iyo wixii ka weyn inkastoo marmarna ay dhacdo hooyada haddii mar walba loo maaragtay raajo fara badan ay gashay inta ay uurka leedahay wuxuu keeni karaa maaragtay in ay kansar uga dhaco naaska waxyaabaha kale imaan kara waxay tahay hooyada culeyskeeda marka uu bato dhaqdhaqaaqeeda uu bato miisaankeeda in ay timaado in maaragtay dhiig karkii uu ku dhaco eclampsia waxyaabahaas ay u dhintaan haddii marka waxyaabaha keeni kara ama horseedi kara kansarka naasaha waxaa ka mid ah haddii gabadha 12 sano iyo wixii ka horreeyey haddii dhiigga caadada uu ku dhacay oo dhaqso goor hore u yimid waa la arkay gabdho noocaasa marka dambe in maaragtay kansarka naasaha uu ku dhaco waxaa kaloo la arkay haddii gabadha ama hooyada dhiigga caadada ay ku daahdo oo 40 sano iyo wixii ka weyn muddo ay ku gaarto waa la arkay in maaragtay kansarka naasaha uu imaan karo cilaaqaad uu ka dhaxeeyo waxyaabaha kale muhiimka waxay tahay hooyada aan si wanaagsan u nuujin caruurteeda waxaa la arkay inta badan waxaa ku dhaca kansar marka waxaan ku baraarujinaynaa hooyada caruurta in si wanaagsan loo nuujiyo ayadoo quraanka kariimkana uu nafarayo in faa'iidada ay leedahay ay aad muhiim u tahay haddii hooyada canuga ugu horeeya ay dhasho 35 sano 30 sano wixii ka dambeeya waxay halis ugu jirtaa mararka qaarkood kansar inuu uga dhaco maaragtay naasaha waxaa kaloo jirta hooyooyinka qaarkood ama gabdhaha dhalinyar waxay isticmaalaan wax la yiraahdo hormoonkaasoo ama caadada lagu daaweeyo laakiin inta badan dadka waxay u qaataan dhalmada in lagu kala dheereeyo haddii muddo dheer la isticmaalo wuxuu keeni karaa kansar inuu uga dhaco naasaha maaragtay haddii hooyada ama gabadha ay sigaar cabto ama shiishada ay isticmaasho oo hadda aad ugu badan wadankeena waxaa imaan karta in maaragtay kansar uga dhaco naasaha shiishada iyo sigaarka waa wax aad muhiim u ah in la iska dhowro sababtoo cudurro fara badan ayuu keeni karaa marka ay timaado sida looga hortegi karo kansarka naasaha waxaa ugu muhiimsan hooyadu mar walba inay la xiriirto takhaatiirta cudurrada haweenka baaris loo sameeyo xataa iyadoo waxba ka cabanayn laakiin la baaro oo la arko waana la baari karaa waxaa la ogaan karaa haddii uu cudurka soo socdo ama uu ku dhalan karo iyo haddii kaleba qaybta kale waxay tahay kansarka ku dhaca ilmagaleenka qaybtiisa hore ama afka hore isagu waa cudur la ogyahay waxyaabaha sababa 99% waxaa sababa virus loo yaqaano HPV viruskaas waxaa lagu kala qaadaa galmada labada qof mid ka mid ah hadduu qabo ay isu galmoodaan ama ay kulmaan sida cudurrada kale aan soo sheegnay way kala qaadi karaan viruskaas markuu dhiigga galo oo muddana uu ku jiro dadka qaar wuxuu u keenaa buro inay ka gasho ama kansar ilmagaleenka qaybtiisa hore waa la socotaan dad badan oo Soomaaliya waa iska warqabnaa in kansarka naasaha uu ku badan yahay kansarka ilmagaleenka qaybtiisa horena ay aad u badan tahay mar walba wuxuu u baahan yahay in lala socdo takhaatiirta xataa adigoo caafimaad qabtid inaad takhaatiirta cudurrada haweenka la kulantid maaha markii maaragtay xaaladda meel fog ay gaarto wax laga qaban karin inaad takhaatiirta u timaadid waxyaabaha kaloo jira waxay tahay sigaarka la cabo ama shiishada aad iyo aad ay maaragtay cudurro badan u keenaan marka in dadka isticmaala ay iska joojiyaan waxaa jira talaal viruskaas ama jeermiskaas looga hortegi karo gabdhaha iyo wiilasha loo ogol yahay inay qaataan si viruskaas maaragtay uusan dadka ugu dhicin naasnuujinta faa'iido badan ay leedahay oo waxyaabo badan ku jira waxaa ka mid ah kansarka naasaha ku dhaca hooyada caruurteeda si wanaagsan u naas nuujisa
waxaa la arkay intooda badan ama dhammaantood kansar kuma dhaco. faa'iido badan uu leeyahay ay ka mid tahay naasnuujinta oo la dheereeyo. cudurrada waxaa jira ay ka mid yihiin oo lafaha maaragtay hooyada markay caadada ka joogsato ay da' gaarto macdan iyo daawooyin fiican aysan qaadan, lugaha waxay noqdaan khafiif. markay culeyskooda waxaa dhici karta xataa inta badan inay laguhu jabaan. waxaa la arkay dadka hooyada naaska nuujisa caruurta inta badan waxaa la arkay dhiikar ama sokorow ama diabetiska kuma dhacaan. waana calaamado waxyaabo la arkay oo ay ka mid tahay faa'iidada laga heli karo naasnuujinta. caanaha hooyada waxay ka difaacaan caruurta cudurro aada u fara badan. maaragtay saa darteed waxaa loo baahan yahay hooyada wax dhibaato haddaysan jirin caafimaad darri in ay caruurta nuujiso inta loogu talagalay oo aada u fiican, caafimaadkeedana ay daryeesho. takhaatiirta cudurrada haweenkana ay la kulanto si xaaladeeda mar walba loola socdo. qaybtii labaadna halkaas maaragtay kusoo joojinaynaa oo aan filayo inaad maaragtay wax badan ka faa'iideen. barnaamijyo kale oo noocaan oo kale ahna insha allah waa usoo jeedin doonaa bulshada Soomaaliyeed.